السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياش وإن سلامينا ملك سدونة كجوكتان. هادو فيديو وان كسو غارو شير جراي أو لايك جراي waxaan iga gaarsiisan ninkan odaygan ah ee gadaashayga ka muuqda fadlan hala gaarsi fiidiyowgan anaana u jawaabay caawdatan hadalkii uu ku dhawaaqay maantay waxaan rabaa inaan wax yar oo kooban inaan ka hormariyo Soomaaliya waxaa jiri jirtay waaga dagaalka markuu dhaco kaleeto ama dagaalka ama xilliga Etoobiyaanka kaleeto ama xilliga dagaalada kaleeto ugu dambeeyay markay dhacaan oo kaleeto guryaha markii laga qaxo waxaa jirto tuuga soo faaftay xilligaas markuu dagaalka dhaco dadka qaxan guryaha galo oo bilaqaysto hadii ay dumar joogaan kufsadaan wixii hantiya la qaataan boobaan guriga isku dayaan balse ninka kan aad aragtaan gadaashay ka muuqda caawa ama ma aan raba inaan u jawaabo oo aan jawaabtiisa aniga aan bixiyo waxay tahay waxa dhacday dagaal arin maalin hore dhacday oo khilaaf yar soo dhaxgal la xaliyay arintii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xaliyay ninkan wuxuu isku dayay inuu ka dhex faa'iideysto dagaalkaasi cilado badan jira awgiis inuu ka dhex faa'iideysto in madaxweynaha dalka Soomaaliya inuu u gafo ayuu bilaabay wuxuu sidoo kale inuu u gafo bilaabay ciidanka qaranka ee Soomaaliya wuxuu sidoo kale oo bilaabay inuu u gafo generaaladii dhammaan ciidankii hogaaminayay balse Soomaali hore waxay u tiri ismooga ayaa ummadii laayay balse ninkan iskuma jeedo asaga isma arko wuxuu oo yahay ma ogo asaga laakiinse runta ayaan u sheegaynaa waana ka daba geynina mana kaga daba hareeno muusow waad ogtahay dalkan waxaad ka galabsatay waad ogtahay dalkan waxa aad gaarsiisay waad ogtahay dalkan waxaad biday waxaad u horseeday Mooryaan waxaad noo horseeday in dumarkeena la kufsado meel cad lagu kufsado maanta waxaad u dhiidinaysaa gabar rabto in dalkii cilad ku kiciso aanan waxba jirin aad soo qaado hadal hadaba ogow dalku dawladu leeyahay mana ahan dalka dawlad haduu leeyahay in ciidankeeda u gafaan shacabkooda balse adigu waxaad u soo gaftay shacabkii ummadda Soomaaliyeed waxaad u gaftay ummadii Soomaaliyeed waxaad soo dhibaataysay oo dhibaato soo biday shacabkii Soomaaliyeed waxaad meel cidla ku dishay shacabkii Soomaaliyeed waxaad isbaara u dhigatay shacabkii balse waxaad moodaa in lagu hilmaamay oo lagu iloobay laakiinse dalku markuu dawlad sax soo yeeshto oo dalku soo laabto doorashadiisa ka soo dhamaado xaqiiqda waxay tahay waa lagaaga daba imaan meesha joogto dhulka dawladda xooga ku haysatani waa laga soo bixin maantay hadii Mooryaan qaran iska keen dhigaayo dal inuu badbaadiyo iska ka dhigaayo waa cilad kale to meel taagan muusow ogow cimrigaagu wuu dhamaaday Soomaali waxay tiri cimri tagay ceeb laguma sogootiyo muusow waxaad cimrigaada ku sogootinaysaa wali ceebtii ka soo raacday 2008 2006 2004 ilaa iyo wixii ka dambeeyay dagaaladii socday faa'iidadii aad ka soo faa'iiday hantidii boobkii ahayd dilkii iyo dhacii kufsiga aad soo geysatay ma ahan mid lagaaga daba haray muusow meesha aad ku jirto aana lagaaga daba imaan waana lagu maxkamadda waxay istaashan lagu marsiin muusow dalka waxaad biday oo aad wali ku sii wadaa cilad aana loo baahnayn maantay waxaad soo bandhigaysaa hantidii ama shacabkii wixii la seelahay ayaad waxa u bandhigaysaa qabiil waxaad u rogaysaa dagaal inaad kiciso waxaad bilaabaysaa dagaal waxaad wadaa dagaal muusow dalkan dagaalka ka daa muusow waa ku sheega aniga mar labaad ayaan kugu celinayaa waxaad rabtaa inaad dib u soo celisid Mooryaanimadii aad hore u wada jirtay waan lagu cadeen aanana ku jawaabayo muusow wax aad tahay malahan waxa gashana malahan dalkan cilada ah ku haysa ka daa hadana gacan bir la iska qaban ogow dalkan meel xunad ku sii wadaan inaad video haleega doobo dadkii kugu hareeraysanay iyo qosla daca al hal ii saabciyo
kaliya haddaad ku daynayso inaad video ku duubto aad rabto inaad shacab waxa ugu sheegto horta cidda kaama dhagaysanayso ciddii ku taqaan waa ku taqaan waan kugu soo gaaray aqli ayaan lahay markaad aadna dhacaysay aqli ayaan lahay markaad waxyaabo qaldan nagu suubinayso mooryaannimada aad nagu waday xabadda naga dul ridaysay dhibaatada nagu waday muusow gacan bir ayaa lagu qaban xaqiiqda taas ayaa ah waana lagu soo qaban meesha aad joogtaan lagugu imaan muusow dalkan cilada ku wadaa weli waxaad wadaa ciladii dhammaatay ee ra-iisul wasaaraha xaliyey ayaad isku dirka wadaa dadkii ayaad isku diraysaa dadkii ayaa iska daba keenaysaa maantay mid lagaaga daba harayo ma ahantan war barnaamijkan sheergareeya war gaarsiiya fadhigiisa loogu gaarsiiyo ninka kaa hana layga gaarsiiyo wax oo gala ma lahan bil-aadan ma ahan kaas caruurtii ayuu laayay waana lagu soo maxkamadan muusow godkaa ku jirtaan lagaaga dabagalaa hadduu ilaah idmo war gaarsiiya barnaamij wuxuu maantay ama u gafayaa madaxweynaha dalka ma aqliga ayaa noo galayo madaxweyne ah wuxuu amrayaa qof hebel hala dilo ama qof hebel waxay wadataa laga tumo aqliga nooma sheegayo laakiin aqliga isbaaraleeda ah waxay u sheegaysaa ilaa wuxuu dhihi jiray oo suubi jiray ayuu maanta wali naga gadayaa ma lagaaga daba harayo muuse gaarsiiya barnaamijka sheergareeya oo iga gaarsiiya meel walba insha allah waa idin salaamaya asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu